kusoo dhawaada Som TV Soomaali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsanid kulan loogu hadlayaa sidii loo xoojin lahaa waxbarashada magaalada Barawe kulankan waxaa soo qaban qaawiyay hay'adda bar ama baro iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka Soomaaliya kulankan waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Barawe horkacaya gudoomiyaha degmada Barawe Umar Sheekh Cabdi Umar Shafaana iyo ururka haweenka ururka dhalinyarada magaalada Barawe iyo qaybo ka mid ah bulshada magaalada Barawe caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horreyn kulankan waxaa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada degmada Barawe hadaladiisna waxay ka mid ahaayeen juhdi iyo dadaal uu ka bixiyo ee degmada si waxbarashadeeda sare loo qaado waxaa runtii marka loo fiiriyo xilligaas iyo hadda oo jiro isbedel fara badan oo muuqda oo dhanka waxbarashada isbedelkaas oo ku yimid dadaal iyo juhdi dheer oo ay sameeyeen oo iskaashadeen dhammaan macallimiinta odayaasha dhalinyarada intaba oo degmada taasoo ah in waxbarashadii xilligaas oo ay ahayd waxaan soo xasuustaa xilli waxaa loo soo maray in Barawe oo dhan hal iskuul ku yaalo iskuulkaasona oo macallimiinta inta badan oo ardayda wax u dhigi jireen si bilaash oo lacag la'aan oo ardayda wax loo dhigi jiray si ardayda markaas soo kacayso ay u noqoto dhiirigelin si iyagana waxbarashadoodu ay sare u qaadaan taas dhan waxaa mahad iska leh ilaahay ka sokow macallimiintii oo markaas soo istaagay oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan oo soo geliyay si waxbarashada ilaa heerkan hadda aan taagana ay soo gaarsiiyaan xilligaas wixii ka dambeeyay waxaa si tartiib u bilaabatay in waxbarashadii xoogaa yar ay sare u kacdo tan iyo markii waxaa bilaabay in iskuulaadkii ay bataan tan iyo markaas iskuulka aan ka xasuusto aniga markii aan yaraa oo aan dhigan jiray sida iskuulka Qaasim Baraawigan hadda jiro oo markaas la dhigi jiray iskuulka Masaarida iyo baraafiidyo fara badan oo magaalada ka jiro oo macallimiin hadda inta fadhiyaan qaar oo maamulyaal ah oo ay ka soo shaqeeyeen xilligaas si waxbarashada heer sare iyo in dhalinta oo hadda qaar oo macallimiin yihiin oo inta badan oo ay macna waxbarashadooda ay ka bilaabeen degmada sidoo kale tan iyo markaas haddana waxaa bilowday in iskuulaadkii oo markaas dir jiray sida iskuulka la dhihi jiray Makaarimul Akhlaaq sidoo kale iskuulka Al-Nuur iyo si tartiib iskuulaado kale oo markaas oo soo aasaasmay soo marka waxa mahadda iska leh Ilaahay oo heerkan ka gaarsiiyay in maanta oo ay tahay maalin taariikh ah sababtoo ah marka loo fiiriyo macallimiinta soo maray degmada waxaa jiray macallimiin si iyagana dadaalkooda ay u bixiyeen oo ay yihiin macallimiin si iska wax u qabso u shaqeysan jireen kuwaasoo xilli soo martay in iskuulaadkii hadda jiraan marka loo fiiriyo degmooyinka kale degmooyin hadda waxaa jiraan waxay haystaan macallimiin fara badan oo mushaarik ka qaatan hay'adaha iyo dawladda intaba anaga ka degmaga ahaan runtii marka loo fiiro degmooyinkaas dhanka ugu hooseeyaan ugu jirnay ma aanan helin hal macallin xataa in uu qaato mushaar oo ka baxsan wixii ardayda markaas laga soo ururiyo oo macallimiinta la siiyo ilaahay mahadiisa laakiin waxaa hadda noo soo baxday iftiin yar oo aan ku horumarin lahayn deegaankeena taasoo ah in hadda uu socdo barnaamij sida aad u jeedaan oo inta ku xusan waa kulan loogu talagalay in loo qabto maamulayaasha iskuulaadka DEO-ga degmada iyo guddiga iyo maamulka iyo odayaasha iyo dhalinyarada intaba oo kulankaasoo ku saabsan sidii barnaamijkan hadda hortaala aan uga dardargelin lahayn barnaamijkaasoo ah in la helo 2500 arday 2500 arday marka loo fiiro tir ahaan aad ay u badan tahay Soomaa ilaan ardayda baxa iska soo qowlay maahan waxay u baahan tahay degmadeena marka loo fiiro waxbarasho ahaan dhalinyarada inta badan marka fiirisid waxay intooda badan xoog saaraan
kubadda cagta laakiin dhanka waxbarashada marka loo fiiriyo qof walba uu ka caajizaa iyo kuwa kale iska yar waa iska jiraan oo hadalkooda mise iska jecel inay wax bartaan laakiin oo aan yani danta mise xaaladda markaas ay ku sugan yihiin aanan u ogolaanin inay waxbarashadooda sii wataan ha noqoto dhanka dhaqaalaha xagga dhiirigelinta intaba laakiin hadda fursadan aan helnay oo aan rabno in aan ka faa'iideysano sidii ardaydaas loo xareen lahaa ardaydaasoo gaaraysa 2500 hawshaasna runtii waxay u taalaa macallimiinta iyo maamuliyaasha kaliya ma ahan ka maamul ahaan ka dhalinyaro ahaan ka ururka haweenka inta badan iyo hooyooyinka iyo waalidiinta sababtoo ardaygaas wax baranaya wuxuu leeyahay qof oo waalid Soomaa waalidkaas laga rabo inuu kaalintiisa qaato inuu ardayga fahamsiiyo qiimaha waxbarashadu ay u leedahay nolosha qofka bini'aadanka sababtoo ilaahay quraankiisa wuxuu ku dhahay qul hal yastawi alladheena ya'lamuuna wal ladheena la ya'lamuun sababtoo nin aqoon leh iyo qof aan aqoon lahayn isku mid ma noqon karaan sidoo kale hadal kale oo isdheeyso oo ayadana macnaheedu oo ah in kunta turiidu dunya فعليك بالعلم وإن كنت تريد الآخرة فعليك بالعلم انتبه هداد الدنيا وباهنتهي waxaa laga rabaa in aad wax barato ay aqoontaada aad kordhiso hadaad aakhira u baahantahayna waa in aqoontaada aad kor u kicisaa sababtoo ah adduunyada horumarkan aad u jeedin mar walba qofka bini'aadanka wuxuu ka sheekeeyaa horumar waxaa jiro horumar oo qofka nafsadiisa ku hormariyo iyo horumar qofka uu ku hormariyo deegaankiisa iyo dalkiisa intaba waxay ku timaadaa koob in qofka horta nafsadiisa uu hormariyo nafsadaada hadaad hormari weyso kan walaalkaaga kugu hareereysan iyo deegaankaagana ma horumarin kartid laakiinse horumarkaas sidee lagu gaari karaa horumarka waxaa lagu gaari karaa in qofka aqoontiisa sare u qaado aqoontana waxay u baahan tahay juhud iyo dadaal iyo dulqaad fara badan u baahan tahay maanta leesma dhigi karo qof intuu si raaxo oo wax ku bartay ma jiraanba sababta marka waxbarashada aad ku dhex jirtid marka dhalinyaro tahay dhalinyarada kala kuwa waxaa jiran oo waxbarashada Ilaahay ku beerayba oo iska jecel inay wax bartaan iyo dhalinyaro kale waxaa jiro oo mar walba lagu tutuugo lagu baro si xoog iskuulaadka lagu geeyo kuwaas amal ayagana waxay u baahan in la dhiirigeliyo laakiin ardaygaas hadduu dhiirigelintaas uu heli waaye waxbarashadiisana macna si uu sare u qaado dhanka fursadaas waxay noqonaysaa mid dayacan soo marka si qofka nafsadiisa uu hormariyo wuxuu u baahan yahay inuu wax barto waxbarashadaas markaas u horseedi doonta in uu deegaankiisa intaba uu macna uu wax ka qabto dhanka waxbarashada sidoo kale deegaanka horumarkeeda marka laga sheekeeyona ilaan deegaan waxa horumarin karo dadkeeda Soomaa dadkii macna hadii is horumariyaan oo waxbarashadii ay sare u qaadaan oo markaas waxbarashadu ayagana ay ku ay ku wareejiyaan mise oo ay gaarsiiyaan inta markaas joogto oo soo kacayso oo caruur iyo dhalinyaro ah haday waxbarashadaas gaarsiiyaan caruurtaas ayagana waxay noqonayaan kuwo waxbarashadooda oo heer sare ah si ayagana noloshooda ay u maareeyaan soo marka isku duubto in wax walbo dhanka adduunka laga hadlo oo horumar ah hadda sida halka adduunka ugu horumarsan marka ay fiiriso waa dalka hadda Mareykanka la dhaho Mareykanka marka loo fiiriyo dalka kale waxyaabaha isku horumarisay maxaa kamid ah waa dhanka waxbarashada iyo dhanka dhaqaalaha Soomaa haddii loo fiiriyo jaamacadaha ka furan intaasoo kun jaamacadooda ka furan taasi ayaa u horseeday in ayagana aqoonta iyo waxbarashada ay sare u qaado sidoo kale marka loo laabto dhanka dhaqaalaha si aad u hormariso ayagana waxay u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay Soomaa qof oo jaahil maanta hadduu macna meel maamul mise business u furto iyo qof oo wax yaqaan marka hadaad meel maamul ka dhigtid mise aad mas'uuliyad ka dhigtid marka loo firo productivity ahaan mise wax soo saarka mar walbo waxa ka wax soo saar badan kan wax soo barta oo aqoon leh oo xirfadiisa ku shaqeysta laakiin qofka duusan oo aqoon lehna markaas wax soo saarkiisa aad buu yaraanaya si intaba horumarka dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada aan u gaarno intaba waxay u baahan tahay in koow waxa aasaas u ah waxbarashadaas waaye si aan waxbarashadaas u horumarno marka aan u istaagno sidoo kale marka loo firo aakhirada xataa
qofka markuu aakhiradiisa rabo inuu hormariyo maanta haddaa aad rabto inaad cibaadayso cibaadada aad cibaadaynayso macnaa haddii si jaahilnimo aad ku cibaadayso aad ku degato waxaa laga yaabaa salaadaada in maqbuul ay noqon weyso Soomaa laakiin haddaad wixii shuruudihii iyo intaba laga rabo aad barato markaas ay aakhirada iyo cibaadada aad sixi kartaa so wax walbo adduunkan iyo aakhiraba qofka duuro inuu isku hormariyo wuxuu isku hormarin karaa dhanka waxbarashada ee aqoonta sidoo kale soo marka hadda hawsha na hortaagan runtii aad bay u badan tahay shaqo yar ma ahan marka si loo fiiriyona aad ay u fududahay waxay ku fududaan kartaa in la helo dadaal iyo juhdi iyo daacadnimo in qof walba oo u shaqeeyo deegaankiisa sababtoo deegaan walba wuxuu leeyahay dad ayuu leeyahay dadkaas hadday u istaagi waayaan deegaankooda deegaankaas wuxuu noqonaa deegaan aan horumarsadeen aadan lahayn soo marka walaalayaal ugu horeeya maamulayaasha iskuulaadka idinka la idinka rabaa in aad yani shaqadaas oo hadda na hortaagan aad noo hormarisaan oo meel sare oo gaarsiisaan si yani waxaa kaloo ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda magaalada Barawe Maxamed Cabduqaadir Fiqi أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام وحن كفر أحسن هاي tallaabada hore loo qaaday ee dhanka waxbarashada waxaan soo dhaweynaynaa gabadha ku dadaashay in degmada Barawe macallimiinteeda ay helaan gunno ay ku howlgalaan ardayda aan awood u lahayn waxbarashadana ay kaga faa'iideystaan waxaan maanta markhaati ka nahay in wejigii labaad ee shaqada lagu bilaabayay ee waxbarashada ay noo bilaabanayso waxay lagu markhaati gelisay in maamulada dugsiyada ay heli doonaan gunno u dhiganta $140 halka macallimiintuna ay ka qaadanayaan $120 waxay lagu markhaati gelisay in macallimiinta ay qaadato ay shaqayn doonaan gelinka dambe ee maalintii si ay ugu faa'iideeyaan ardayda masaakiinta ah ee aan awoodin inay iska bixiyaan gunnada aad aan ugu faraxsanahay gudoomiyaha la soo dhaweeyo markhaati gelinta ayna martiqaadi gelisay ee ah macallimiinteeda iyo maamulka iskuulada inay maanta ay ballameen kuna ballameen in shaqadii la bilaabo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan hortiina ka cadaynaynaa in furitaankiina aanan goobjoog ka ahayn haddana aan goobjoog ka nahay ballantii ugu dambeysay aad kala qaadateen barnaamijkan bar ama baro gabadha mas'uulka ka ah ayna noo sheegtay in maamulo kasta iskuul uu qaadan doono $140 halka macallimiintu ay ka qaadanayaan $120 ayna shaqaynayaan gelinka dambe oo keliya waxay ugu markhaati gelisay macallimiinta macallinkii iskuulkiisa aan fasal ka banaanayn in la geyn doono iskuul kale oo fasal ka banaan si ardayda masaakiinta waxba aan haysan looga faa'iideeyo arrintaas aadan soo dhaweynaynaa meesha marka waxaa ku soo kordhay isxilqaan arrin la yiraahdo oo ah qof kasta oo naga mid ah inuu shacabka wacyigeliyo dadka masaakiinta ee xeryaha qaxootiga ku jira barakacayaasha magaalada gudaheeda ku barakacsan dadka kale ee tabarta yar aan awoodin inay iska bixiyaan dhaqaalaha lagu dhigto iskuulaadka in la wacyigeliyo si ardaydooda ama caruurtooda ugu faa'iideystaan waxbarasho lacag la'aan ah aad ayaa u soo dhaweynaynaa maanta waxaan markanahay inaad ballanteen kuna ballanteen shaqo waxbarasho oo lagu horumarinayo dadka masaakiinta ah anoo marka ka faa'iideysanayo fursadaas iyo ballanta aad qaadeen maanta waxaan haysanaa fursad ah tallaabadii ugu horeysay ee aan hore u qaadnay dhanka waxbarashada haddaad wanaajisaan oo ardayda ay badato oo tiradii loo rabay laba jibaar ay noqdaan waxaa suuragal ah in macallimiin kale iyo nidaam kale haddana la dalbo si dhammaan macallimiinta degmada ay u helaan maxaa la yidhaahdaa gunnadii ay wax ku bari lahaayeen
sidoo kale haddii tiradii naloo diray aan weyno waxaa suuragal in la yidhaahdo degmada intaas macallin uma baahna macallimiinta ha la dhimo tirada waxbarasho ee ardayda ay hayaan ha lagu beesgareeyo maadaama abaalmarin ay tahay qofku wax qabta in wax loo badiyo haddana meesha waxaa ku jirta qofka wax yareeyo wax loo yareeyo taa markasaan ugu gudubno waxaan rabnaa maamulayaasha hooyooyinka maamulka degmada ururada bulshada rayidka iyo ururada bulshada degmada waalidiinta odayaasha dhaqanka ganacsatada dhammaan inaan u istaagno in waxbarashada sare loo qaado marka mowduuca asugu maanta waxay ay tahay waxbarashadii oo in muddo ah macallimiintooda training la soo siinayay in muddo ah la wacyigelinayay la lahaa qaabka wax loo baro iyo qaabka wax loo sameeyo la soo barayay laakiin maanta waxaa markhaatina looga dhigay in shaqadii ay bilaabanayso macallin kastana looga baahan yahay iskuulka uu joogo inuu ardayda kusoo diyaariyo isagoo kaashanaya asal macallinka ayaa ah annaga waxaanu nahay garbihiisa macallinka ayaa waxaa looga baahan yahay inuu guddoomiye xaafadeedyada la kaashado ururada haweenka la kaashado qayladhaanta marka hore isaga inuu sameeyo mar kasta uu qayladhaan sameeyo wuxuu heli karaa awood ah in la caawiyo oo arday loo soo raadiyo oo loo keeno oo dadkii ay ogaadaan in waxbarashada lacag la'aan ay tahay laakiin hadduu macallinka iska fadhiisto dadka kale keliya wax ma qaban karaan iyagana sidoo kale waa ku mahadsantihiin waa kan guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Barawe Maxamed Cali Yuusuf ayaa sheegay in waxbarashadu muhiim ay tahay iyo dhammaan inta martisalaf ka soo qayb gashay dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waa mahadsantihiin iqra iyo tiimkeeda wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan hay-addeeda waxay kasoo bilaabeen hoos waa loo baahnay muddo badan ayaan degmada Barawe dhibaatooyin badan xagga macallimiinta ka haysatay iyo ardaydaba ardayda dhibaato badan ayay ku jiraan waxay ugu jiri jireen xagga muxuu ahay waxbarashada macallinkii oona awoodo naftikiisa oo mushaar aan qaadan waxba qaadan subaxdii alasay iskuulka tagayo ka soo naqanayo soo helin waxbaray ciyaalkiisa waxbaray u samray u soo dhabar adeegay iyo dhalinyaradii iyo naftikooda oo ardaydii aan waxba haysan waalidkooda waxba awoodin waxaan leeyahay taas waa barnaamij aan muxuu ahay aad iyo aad maamulka degmada Daanaan aan soo dhaweynay si weyn aan soo dhaweynay haddana aan si insha Allah taala aan garabkeeda weligeena ku jirnay haddana aan muxuu ahay si weyn ba aan garab u sii doono muxuu ahay bahda muxuu ahay iqra wasaaradda waxbarashada iyo muxuu ahay tiimka hay'adda aan garab siinayn marka waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa maanta maadaama ay noo timid waxbarasho lacag la'aan ah boog lacag la'aan ah qalan lacag la'aan ah macallinka naftigiisa uu helayo mushaaraad iyo wax uu helayo oo marka hore aan waxba ka jirin maanta alxamdulillah ilaahay mahadiisa waa marka waxaan rabnaa aqoon la'aan waa iftiin la'aan dhalinyarada Soomaaliyeed ee degmada Barawe waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan inay wax bartaan inay iskuulada yimaadaan iska wada qoraan dhammaan xaafadaha degmada Barawe oo dhan marka waxa waaye biri waa dadka madaxda naqal lahay macallimiinta sidoo kale aad iyo aad u mahadsanyihiin professorada wax badan ayay qabteen annaga naftigan dadku waxaan soo wada baray waqtiga muddo hore ilaa haddana uu soo dhawaray macallimiinta waa aabihii degmada waa aabihii degmada Barawe waa macallimiinta waa macallimiin loo kara maan waan soo dhaweeynaa waxaan rabnaa macallimiinta ay naftikooda waa inay samraan way soo samreen hadda hashi waa curad hashi waa sugeynay waa curad hadda waxaan rabnaa macallimiinta naftikooda inay niyadda dhistaan dadaalkooda kor u sii dhigaan horumarkooda kor u sii qaadaan dhalinyaradii xaafadaha ka soo kaxeeyaan guriyihii waa yaqaaniin dada ka xishoonaya waxbarashadaba ceeb ay u moodaan dadka waaweyn ee degmada Barawe haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaasha waxaan ugu baaqay naftikooda inay wax bartaan tagaan meelaha goobaha waxbarashada oo friiga oo hadda la keenay oo hay'adan oo iqra hogaaminayso iyo tiimkeeda ay keenay wasaaradda waxbarashada iyo guddoomiyaha waxbarashada degmada Barawe marka waxaan leenahay أنا ما ملاحظ وادي كرب تاجرنا هاي هويوينك وحبوا باقي أي نفط كذا وحبرتان سكولات كتاجان سكندري سكول هوسط ده كل خلين جبيان حتى وحال بسوا دكسي سريع بدأ بسوا نفتي يسوا وقب قل دولار إن شاء الله ومركب سكندري قفك وصودا مستو لكن باهداس أنا وجد حنك بحد دكسي سريع بدأ دجمة برا كبح أو شق بيمال وكيال مركب حرمنا معلمين تاني قرر لاسي وحضرنا وصود دلالين
idinkana sidoo kale biri waxa dhalinyarada iyo hooyooyinka waxay noqon doonaan madaxda mustaqbalka marka waxa la rabaa in aqoonta waa muxuu ahay waa furaha nolosha waa aqoon la'aan waa iftiin la'aan hooyooyinka waxa uu baaqaynaa in ayagana ilmahooda keenaan iskuulaadka meel walba ay keenaan iskuulaadka ay keenaan macallimiinta la soo xiriiriyaan soo wadaan for free wax walba mar walba insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in oo muxuu ahay fiicnaato waxaana sabab u ah barnaamijkan kor marka la yiraahdo maamulka degmada iyo koonfur galbeed iyo madaxweyne Cabdicasiis Lafti Garaan gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cali Siid Faqi iyo dhammaan madaxda qaranka oo dhan ay koonfur galbeed ayaa sabab u ah waana mahadsantihiin ku soo dhawaad insha Allah Aways Sheekh Muumin oo ka mid ah nabadoonnada magaalada Barawe ayaa sheegay in waxbarashadu muhiim ay u tahay bulshada waxbarashada in kor loo qaado marka xigta waxa dheeraad oo laga sheegay bajirin waayo ceebteeni umba ay asturaysi ilaahay idana ceebteeda asturo sababtoo ah waxbarashada magaaladii loo soo waxbarasho taga jiro maanta magaalada ugu liidata ayda noqotay waxbarashada waa zero markaan dhahayo ma aha ma jirto ma ahana ilaan intaan qofooda wax maamulaysa iskuulaadka furan iyo macallimiinta dafka ah oo ilaahay khayr asiye oo ilaa hadda hawshaas wadaan oo ku mahadsan yihiin ilaahay ajar iyo khayraad ka siiyo waa jiraan laakiin waxbarashada sidii la rabay ma aha waxbarashada degmo oo tan oo kale oo magacaas leh oo la og yahay taariikhdii hore wixii ay ahaa jirtay maantana ay noocaan noqotay horta nasiib darro way walaalkeen cartan dheer haddana wuxuu sheegay waxbarashada dadku waaweyn loo furo waa runtiis waa la habsaamay ma aha kaliya in ardayda oo caadiga ah caruurta kaliya in laga fikiro ma ahane inkastoo waajib way taas waa qasab waa lagu qasbo in laga fikiro laakiin waxaad ogaatiin dhalinyarada oo u dhaxayso 15 ilaa 30 khadka way ka wada baxeen oo ogsoontiin idinka gudoomiyaha baarlamaanka maalintii inta ka hadlayo qaar ka mid ah odayaasha degmada uu la hadlayo wuxuu u yiri ilmihiina ka ilaaliya droogada waa laga warqabaa meel kasta waa la ogyahay degmo kasta waaye anaga kaligeena ma aha laakiin magaaladan droogada si baaxad weyn ilmaha yarka wallahi maanta wax oo celinay ma jiro dadku waaweynka ayaga ka daran qaabka ay droogada u aaminsan yihiin waa dadka qaarkiis waxa laga yaabaa droogada inay wax yar u haystaan ma wax yar ilmaha laga ilaaliyo waxa loo ilaalin karaa sida hadduu cartan sheegay hala bilaa horta iskuul oo seeraalaha oo kale horta seeraala micniisa adin sheega waa seeraala aftaliyaan waxa way habeenkii way waxa la sameeyay jiray waqtigii hore dadka maalintii shaqaale way oo shaqaal wada aada ki dawlad u shaqeeyo iyo kan u shaqeynaba waa la wada xamaalan jiray saac amal ma ahan shaxad ma loo nooleen waa la shaqeysan jiray laakiin maxay ahayd habeenkii markii la gaaro ninkii fursad u waayay asagoo yar oo iskuul inoo soo dhigto habeenkii ayuu waxbarasho qaadan jiray shahaadan lagu qaadan jiray shahaadada waxay la mid tahay shahaadooyinka oo dugsiga dhexe markaas ka bacdi hadda asoo ka soo baxay seeraalaha wuxuu awood u lahaa inuu dugsi sare dhigto waxaa jireen rag oo ayagoo waaweyn dugsiga sare caruurta oo dadka ayaga ka yaryar la dhigan jireen kolka taasna sidoo cartan sheegay ilaahay aan xasuusi inaan ka dhabayno oo aan raacano taladiis midda kale maamulayaasha waxaan kula dardaarmayaa hal walaxaad ha ogaadaano waalidiinta rasmiga oo caruurtan idinka waay midka dhalay waxaa laga yaabaa in uu ugu talagalayba xilliga oo maaragtay oo guriga ka maqan yahay iyo islaanta inuu ka dhiminayo ilmaha inuu ka dilin inuu ka fikirayo halkoo marka mashquul aan noqdo ilaa duurkii qaar saasaaba jiro odayaashka laakiin idinka waxaa tihiin kuwa mar kasta gacanta ku haya idinka xoogga saara caruurtii oo waalidiintii xoogaa galab ah inaad si fiican aad ugu soo saartaan rag teeda kale waxaan lagu talin lahaa inaad isticmaashaan system oo qadiimi ah laakiin oo jiro buuga u samayn kartaan buugaas waxaa la yiraahdaa buug oo anama aqaan af ingiriis waxa lagu yiraahdaa yani justificazione hadana del justificazione in italiani yani justification waa taqaan waa cudurdaarka isaga buugaasi waa buug oo been laga sheegi karo waxa ku qoran date yani ugu yaraan sanad dugsiyeedka dhan ayuu ku qoran yahay meesha ugu dambaysa waa hadal waxa ku qoran hebel maalin heblay sababtoo u baaqday
aabbaha ama waalidka markaas oo ka mas-uula inuu soo qoro saxiixo oo yidhaahdo anigaa ka warqaba wiilkayga intaas sababtaas oo u maqnaa waxaa dhici jirtay 3 bilood kasta waalidiinta waa loo wici jiray ilmahan waxaa la jiray buugiina keena waa la hordhigaya adeer adiga maxaad u siixid ma soo siixinoo warqadaan ahaa wiilkaaga ma jirana wiilkay wiligiis ima keenin buug aniga ceebta meeshaa ka soo bixi jirta hataa iskuul lama gooyi karin waxaa waaye waxbarashada ilaahay idin fududeeyo oo dadka wax baraayo macallimiinaad tihiin waanu ku mahadsantihiin ilaahayna ajir iyo khayraanta idinka siiyo aniga hadalka waa dheeray waxaa la idin xasuusinaa baraawe waxaa ahayd magaalo ku ammaanan xagga waxbarashada seedii hore ilaahay waxaa idinkaga baryaanaa idinka sabab u noqotaan inaad dib u soo celisaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hay-adda barnaamijkan keentay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan si gaara u soo dhowaynayaa qolyaha keena barnaamijkan oo gabadhan yartaa aniga magaceeda ma garanayo iqra aad iyo aad baan ugu mahad celinaya da'deeda iyo shaqada ay haydaa waa kala weyn yihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baan ugu mahad celinaya waana soo dhowaynaya intaa kadib annaka waxaan nahay reer Embareso ayadoo aanan hay-ad haysan oo aanan qolo kaloo taakulayn haysan aan waxaan isku kallifnay in waxbarashada aan carruurta u abaabulno ilaahay mahadiis arrinkaas waa dhaqaajinnay haddii alla kuu roon yahay guddoomiyaha waxbarashada guddoomiyaha degmada taliyaha booliska kan kaloo ciidanka waxaasoo dhamma iskoolka qaabkii Embareso aan u jahaynayna gacan bay naga siiyeen wayna ku mahadsan yihiin meesha aan soo gaarnay waxaad ogtihiin 4 lugood haddii baabuurku banjar ka yahay iyo markii lugu banjar ay ka tahay ama 2 banjar ka tahay waa kala saalan yihiin hadda 2 lugood aan banjar ka nahay 2 lugoodna waa noo aariyeysantahay waxaan rabnaa 2daas lugood in naloo aariyeeyo haddii alla kuu roon yahay si aan 4taba ugu istaagno annakana dadaal baan wadnaa waxaaban isku dayaynaa oon abaabulkeed ku jirnaa dadka wixii 60 ka hooseeya ama ku dhodhow inay wax baran karaan sidii iskuulladii la dhihi jira seeraalaha oo dadku asagoo waaweyn oo wax baranaya inaan idhaahdo war waa saacado yare buug iyo qalin qaado bilaashaa lagu keenay saacadahaas ama 2 saac ama wax la mida ah wax soo xarxariiqo faa'iideyso abaabulkaasaan ku jirnaa wixii ka yaryarna iska badaa waxaa weeye marka arrinkaas hay-adda aad baan u soo dhowaynaynaa waana ku mahadsan yihiin marka haddii alla kuu roon yahay waxaan rabnaa in halkaas laga sii wado waxyaabo yaryar oo naga dhiman oo aan hay-adda weydiin doonoon xoogaa tabayna waa iska jiraan laakiin waa weydiin doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كسلام يا نول باماموس كومشي سكوف الديو أيها إذن كسلام يا وحن هل كان آد وقوم هذا علينا قدومي هذا جمد براوي عمر الشيخ عبد شفانة ومعناها أرنتان أي سنهر قرشين هدوسن أسوي كدم بينين ووصل معناها وصل قبن قابين وصل رالك كأهين أي سنصعون لهنا أرنتاني آدنا وهجامي وقبطي ونسود وياها يد هوشان وده وحن كلام مهد علينا إقرأ وحن لنا هاي سود جهد جوين أو أتصاق شيء أو أدنى قبطينا وحن كلام مهد علينا آد وحن كلام مهد علينا معلمين تينا دقمة براوي وأيقون آد وصا هجامي هوشان ساق بنقابي وحبرشدو دي وحودي haddana u heegan inay baraan ubadkoodii ay wax baraan ayaan leenahay annagana haddaan nahay ururka degmada Baraawe waxaan aad iyo aad garab qabanaynaa gabadheena Iqro in aan wacyigelin iyo garab aan ku siino inaan ardayda soo qorno oo aan ardayda guryaha ka soo bixino sida dadka barakacayaasha dadka aan awoodaha haysanin inay wax ku bartaan marka aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa ma sha Allah kaana tabarakallah hilmaan hadal kuma jiro taliyaha booliska gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ayagana aad iyo aad ayaan idin salaamayaa hawsha aad soo garab qabateen iyo macnaha amniga
oo ilaa hadda noo wado taliyaha booliska degmada waa idin mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gudoomiyaha waxbarashada taliyaha booliska degmada Baraawe maareeyaha eelboorka macallimiinta iyo ururka haweenka iyo saxaafadda sidoo kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد السلام اسكي سلامة الحمد لله إلهي ما حتى أسكله وأرن ما شاء الله تعالى وفرحت له مركا إلهي اسكي ما هذين الحمد لله ما حد قاره أي سنة إن شاء الله إغراء ولا شيء سكوش غاية أرنتان مد بدل كهولنت إغراء آدي ما حسنته كي سلانة مركوات يمر لبعض يمر ستهادو إن شاء الله تعالى تنكهوي أهان إن شاء الله ويجلن ديارو أرضينا إن من توكيس كوبينو والبشرة لشينا دياري أن ما يكباعي معلمين تيانا إياه كالنتي أنا قادرنا لوايجيلو ده كان degmadan maadaama insha Allah iteegan oo ina horumarkii danay ka jirta dib u dhaakii maadaama dhibaato badan oo ni saameeyay ay tahay magac huma sini hooyada ay tahay had ma sha Allah farxad muujiyayna ina oo horumarta degmadan waxbarashada muddo badan kula eeftay aran farxad leh waa insha Allah waxa ma ikbaagayay bulshooyinka ka nool degmada Baraawe nawaahigeeda Baraawe nawaahigeeda fursadan in aan ku faa'iideysado aan isku beer darayna insha Allah qof kasto anaga ka hadii wala baraay lakida buugaag lakiisiyay qalan lakii gaday boorso lakiisiyay uniform bas la ko baahan in aan ka adeegto insha Allah in ibraarugno joogsano waaygelino hidiliga naamoogaas wala ka bar lahaayeen insha Allah miiska saaranta macallimiinta iskuulada xaafadaha in la shaaciyo hidii qof kasto meesha kiyaala la ogeysiyo dadka macnaha ma fahansan dadka qaar iskuul meesha kiyaala dad ogaan isku jiro insha Allah unana saakan wali ku balaawo taariikhda ay tahay bisha koowaad bisha deedaad koogeeda insha Allah ma diyaar in joogsano waayigelinta degmada ma gudoomiye ma ka codsadayay ina insha Allah gudoomiye waaheedada wato insha Allah amar siito in maadaama qof kasto waahig oo iskuulka ka yaal ina la ku howlgeliyo insha Allah la baraarujiyo dadka baawuro od baahi la ka helo sidii ay waraayay ka deersin lahay odkan ina deero insha Allah gudoomiye diyaar ah inta ka haway ahaan marka ku baahanay ina gudoomiye waaheedada aad deersito insha Allah waan iski salaanay ma ka maadle mad kawaadi mar saddeed mar afraad gabartay walaashay sidoo kale macallimiinta gudoomiyaha sidoo kale maadaama ay tahay qofkii soo abaabula hawshan oo u soo dhabar adeega intaas oo waa mahadsantahay kuleeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله ماما أدي هذا ما سنتهاي سودو كلنا أنا كنا مرة والله إن شاء الله إن شاء الله ماما ذا سيدا وعني ونكسني وقف قاعدتي وان كم هادعلنينا أجري حسنات الله يدين كسيد مانتينا وحنا سوق إيماني مل ونكسن وان واحد لأنه سيدا أهر مرين كرنا أقون تديجانك وأنا وحفي عن ما شاء الله وما سنتين مرول بوا إذن كوع العلينايا مركنا وحنا وعدونا تليها بوليسكا دقمدا براوي مدني عبد القادر آذن محمد إن شاء الله سولوينت وحقينا مرول بنا قرب كنا يوتاجين هاي وليبا برنامج كان قفك وين كالنت وين كقاطي أسقوها إن ديجان كانوا إمادنا إن فالجلين تيدا لها سلوون كلنا بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين قفل وحكو سلامة يا مصر وحالكم كفرديو سلام كدب ما أنت شرفوا بينو تاي إن سجون معنا برنامج كل جوهر مرينا يوحبر الشدة ومددر أي سوري رينيسي أيضا أما برا أما يقرأ intaas markaan ugu gudbo dhinaca waxaan leeyahay macallimiinta iyo dhammaan maamulka iyo inta qosayso waxaan ka codsanaynaa
inay kala shaqeeyaan dhinaca horumarka. waxaan rajaynaynaa in wax badan oo kale ay soo kordhin doonaan barnaamijkan. maanta waxaan maraynaa in naloo keeno macallimiintii in mushahar naloo siiyo maamulayaashii, ardaydii in lacag la'aan wax naloogu baro, in qalmaantii iyo buwaagtii iyo wixii baahiyooda ah in ay helaan. berina insha allah waxaan gaari doonaa inay helaan baabuurtii lagu tegi lahaa xaafadaha iyo wixii maaragtay kale oo ay baahidooda ah. marka horumar baan mar walba waxbaa noo soo kordhaya. meeshaan joogno insha allah dib uga noqon mayno, horaan uga sii soconaynaa. waxaan leenahay rajaynaynaa in dadka xitaa tuulooyinka ku dhow cid alla ciddii iman karta waxbarashadaas lacag la'aanta inay ka faa'iidaystaan oo la gaadhsiiyo dhammaan deegaamada iyo tuulooyinka xitaa ku xararaysan Baraawe kaliya maaha, inay ka soo qayb galaan iyaga laftooda oo ay yimaadaan. waan ka codsan lahaa beled iyo baadiiba maadaama ay tahay fursad qaali ah fursadan in ilaahay annagana naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta. maamul ahaan annagana insha allah waa garab taagannahay, waan kala shaqaynaynaa wax walba oo maaragtay horumarka ah. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آدي أم هاتسنتهاي إن شاء الله مركنا وحينو وحي دونا قدومية كحجين كأوركا دلنياردا دقمة براوي آمين على سيدو إن شاء الله سودو أيان لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha degmada ku-xigeenkiisa, taliyaha booliiska, macallimiinta iskuulka, kale insha Allah ururka habeenka. ma sha Allah barnaamijkan baro ama baro aad iyo aad ayaan ii sheegay u soo dhaweynayaa. waana ku faraxsanahay Iqra Jeylani Abu. ma sha Allah baraw maanta waxbarasho free ah hadii nolol keenay. kale qof walba wuxuu ka caban jiray maanta waxbarashadii hadii waa aadina hadee dhahan waxay ka caban jireen buugaag ma haysano, boorsooyin ma haysano, qalmaanta wax ku barleen ma haysano. kale insha Allah gabadheena juhdi badan iyo dadaal badan ayay ii sheegay gashay weena keentay. kale ka dhalinyaro ahaan anaga waxaan u istaagaynaa insha Allah maanta wixii ka bilaabmo meel walba ay joogaan arday oo wax haysanin inaanu istaagno. sida ay sheegay ardayda oo garaawistada aan wax baranin, caruurta agoonta, barnaamijyadaas oo dhan insha Allah waa kala shaqeyn doonaa. kale dad badan aan ii sheegay hadda dambeeyo insha Allah hadalkayga intaasaan ku koobayo. gudoomiyaha degmada, gudoomiyaha ku-xigeenka, taliyaha booliiska, gudoomiyaha waxbarashada iyo maamulayaasha iskuulka iyo maamooyinka dhammaan waxaan idinku salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta meeshaan waxaa iskugu imaanay arrimo kale ma ahan oo arrimo siyaasad iyo arrimo kale ma ahan. waxaan iskugu imaanay waxay tahay waxbarasho. waxbarashana haddii la dhaho waxaa waaye degmo kasta degmo ka horumarsan tahay way ka waxbarasho badan tahay amba waa ka waxbarashada maaragtay sareysaa. marka maadaama sanadihii hore ee lasoo dhaafay oo maaragtay anaga aan joognay markaa yaryareen wax ku baranaynay degmada waxbarashadeeda aad u sareysay, degmooyinka meelaha ku hareeraysan dhan loogu imaanayay. haddana sanadihii dambe maaragtay aad u sii leexatay oo maaragtay hoos u sii dhacday. haddana waxaa u malaysay inay kor soo aadayso. marka waxaa idin leeyahay waxbarashada degmada in maaragtay kor loo qaado. taasna waxaa sabab ugu noqon karta ama sabab u horseedi karta waa maamulka degmada iyo iska kaashanayo ururka haweenka iyo maaragtay odayaasha iyo maaragtay shacabka dhammaantood ayagoo garab isiinayaan. waxa ugu horeeyo oo waxbarashada degmada maaragtay kor uu kici karto waxaa ka mid ah wacyigelinta, in wacyigelinta la badiyo. maamulka degmada oo horeeyo inay wacyigelinta maaragtay dadka wacyigeliyaan, ururka haweenka maaragtay adeegsadaan, ururka dhalinyaro adeegsadaan. ma aha maamulka inay ayaga ordayaan, laakiin waxaa jirta urur dhalinyaro, urur haween. ururka haweenka haddii loo sheego oo la dhaho maaragtay maanta xaafadaas taga oo dadka kasoo wacyigeliya ama guryaha dadka uu taga, waxaa waa maamooyinka guryaha ku jira kasoo saara. waxa ay la tahay inay kasoo saari karaan. sidoo kale ururka dhalinyaradana sidoo kale wixii rag ah, wixii darbiyaha jiifo iyo wixii maaragtay meelaha dhan taagan wax u sheega oo maaragtay soo qabta oo gacan qabta oo maaragtay iskuul baa la idin furay waxbarasho maaragtay yani lacag la'aan waaye, buuggaaga wax walba lagu siinaya kaale imaa waxa la dhaho. waxay la tahay inay maaragtay waxbarashada yani kor u soo kiciso.
ururka haweenka inay maaragtay aad ugu dadaalaan maamo kasta guriga kasoo toostaa daris ay leedahay ugu yaraan 40 dhinacaan 40 dhinacaan 40 dhinacaan ay leedahay waxay la tahay inay maaragtay gaarsii karto dhihi karto waliya waxbarasho jirto aruurtiin waxa la baro guriyaha laga soo baxo maaragtay yani aruurtiin maanta haday wax bartaan maaragtay bulsho maaragtay wax baratay waaye degmada aan maaragsan haday dhahdo يعني waxay dhiirigelin u noqonaysaa laakiin hadii oo aan iska aamusno qof walba jiifto maxay galo qof walba iska dhaho wax faa'iido ma aragtay saameynaysa ma lahan kulli waxbarashada macallimiintan ayagana inay ku dadaalaan yani ardaydaas sidii wax u bari lahaayeen niyadoodana ma aragtay ku jirto inay dadkaas soo saaraan oo warshadaas ay soo saaraan niyadooda ku jirto aysan fiirsan dhaqaalaha la siinayo $140 wax qiimo ay ku fadhiso ma lahan laakiin waxa waaye hadii la helo dad tayo leh oo macallimiin tayo leh oo aruurtaas wax soo saarayaan la helo oo niyadooda dhan aysan ku jirin lacagtaas $140 lagu siinayo fiirso wax qiimo ay yeelanaysa ma lahan waxbarashadaasna waxa lagu jeedo ma lahan laakiin hadii macallimiinta oo niyadooda wanaajiyaan ee dhahaan degmada u danqadaan oo waxbarasho ma aragtay tayo leh inay soo saaraan maamulayaasha يعني اسكولك حواي ايغا ما aragtay maamulka ah hadii ardayda yani macallimiinta la hadlaan ay dhahan kaaliya ma aragtay arintaas jirto waxyaabo badan oo qaldan oo yani ayaga dhaxdo isku sheegan يعني aad u wanaagsan tahay sidii oo markii ugu dambeysay aan ka hadlay oo maleynay macallimiinta inay modelaad sameystaan ee isku imaadaan niyadooda isku furaan oo wax walba ka naqaashaan degmada kore oo kicisa laakiin iskuulka kala duwan cuqdud u qabo oo ma aragtay aysan ma aragtay fiiri karin macallin kale aysan fiiri karin wax meesha yani waxbarasho kor uma kiciso laakiin hadii macallimiintu niyadooda isku furan yihiin oo wax yani dhaxdooda naftirkooda hadii wax kala faa'iideysanayaan iskuulka kala awood siinayo haduu ma aragtay wax kale yahay laakiin hadii macallinka kala fiirinayo macallinka kale yani cuqdud u qabo oo ma aragtay isan ma aragtay u leeyahay macallinkaas wax ma yaqaan liidaayo oo asaas kuma leeyahay mutakabbirnimo yani kibir ku jiro yani wax waxbarashada kor uma kiciso laakiin macallimiin inay modelad sameystaan gudoomiye sameystaan ee ka wada hadlaan si degmada yani ugu horumari lahaayeen haday dhaxdooda waxa ka jiro maamulka uu la imaan lahayn arintaas aan haysan inay dhahaan yani degmada yani in la isla kaashado waa maamulka li wax ma qaban karo laakiin maamul hadii la garab taagan yahay oo dhahayaan maamul arintaas anaga qaldan hay way arinta ay maamulka idin fududeynayaan laakiin hadii maamulkii basas laga qabo oo idin u imaanaynin idinka dhaxdiina sas iska qabtaan wax yani waa idin kordhay malahan degmadana saas uma kordhays degmadeen way anaga horumari karno ururka haweenka ma aragtay horumari karo maamulayaasha iskuulka kamid ah macallimiinta kamid ah yani hadii saas la iskugu imaado qof walba niyadu iskugu furo iskugu imaadaan waxyaabo badan hagaagaya marka insha Allah saas inaa ku dadaashaan macallimiintu iskugu imaadaan tashi wada yeeshtaan yani shir wada sameystaan usbuucla sameystaan iskugu imaadaan wixii qof kale dheeriya inuu yani naftirkiisa u sheego wixii khibradaas in macallimiin waxa fadhiyo khubaraha oo intaas soo sano 30 sano 40 sano wax dhigayeen in laga faa'iideysto laakiin hadii macallinkiiba aad yeesaysid had yar inta muqdisho aad tagtay jaamacad yar ka soo baxday iskuul yar baratid English ku hadlaysid yani macnaheedu ma aha English ku hadlaysa ina aqoon aan leedahay English lagu hadlaa aqoon ma aha laakiin aqoonka experience qofku duu leeyahay oo yani waxyaabo badan oo yaqaan waxyaabo yani kaas ka qiimo badan يعني هدي هذه إسلاميين كوجرت لو واحد بإنجليزي أكو هاللي سو ده سو دوكسنيس معناه ما هنا أقوال على هذا لكن هدي أو نهيد رسكو فرو رسكو إماده كم بكم كل كسره أو أنتو إكسبيرينس لها ما يقصنا بحسب دي هاي محاكو يعني دبات بدنا محا يعني كو يعني في عنا هذا تراد يعني وحياة بدنا نهيد رسكو فرسان هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maamulayaasha ururka habeenka ka soo qaybgalayaasha odayaasha iyo iqra oo hawsha guud ayadana wada iyo qabaqaabayaasha xafladan aadka loo habeeyay quruxda badan dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta ugu qiimaha badan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii aan sheegi lahaa dhammaan waa la soo sheegay oo ugu dambeeyey professor muumin iyo walaalaha kale ka sii horeeyay odayaasha ayaa warkii soo koobay marka anigana waxaan insha Allah waxaan iskugu darayaa fikir iyo su'aalo maadaama aan ka socdo maamulada dugsiyada degmada Baraabe arinta inta badan culaysaadka wuxuu ku dhacaa maamulayaasha ayaa ka warqaba hal arinna wayna dhibtaa anaga maalin kasta mahmaah ayaan ugu noqotay oo ah magaaladani waxbarasho ma lahan
waxbarashada way liidataa magaaladiina waxaa ka furan dugsiyo fara badan maamulo ayaa jiro macallimiin ayaa joogaan arday ayaa joogta waxbarashadii juhdi fara badanaa la bixiyaa su-aasha taagan marka waxay noqonaysaa maxaa magaaladani waxbarashada mar kasta loo leeyahay way liidataa iskuulaadkiina waa la aadaa subax waliba macallimiin baa soo kala hada ardayaa dhigata soo labisata su-aashaas waxaan rabay anoo soo dhex dhigayo walaalaha fadhiya yaa ka jawaabi kara su-aashaas maxaa marba loo leeyahay baraha waxbarashada way liidataa su-aal jawaab ma haysaan waxaan u malaynaya in laga aamusan yahay marka jawaab ahaan fikirkayga waxay ila tahay aniga degmadan xaqiiqatan maamulka ayaa og iskuulka dhigayo dhibka meesha ka jira ama su-aashan jawaabta saa ka warqaba dugsiga tusaale ahaan waxaa dhigata 200 arday 200 arday waxaa lacag ka bixisa 10 qofood ama 50 qofood ama 20 ama 30 ayaa lacag ka bixisa inta kale lacag ma bixiyaan hadday bixiyaanna waa $2 ama $1 macalinka markaas wax bixinaayo iskuulka markaa macallin aan kaysatid wuxuu ku leeyahay mishaar meeqa isiinay maamulihii wuxuu ku hadlo ma hayo lacag uu macalinkaas ku qanciyo ma hayo danta waxay ku kalifaysaa markaas in wadaad xiro wadada socda inuu macallin ka dhigto mis macallin yaroo daraad dugsiga sare ka baxay inuu soo qabto waxbarashada sidaas uu ku daraanduriyo ku sii wado marka waxbarashada mar kasta waxaa hoos u dhigayo waxay tahay dhaqaale xumo dhaqaaliha ayaa baraha waxaa u dhigay waxbarashada inay liidato ma ahan macallimiin ma ahan arday ma ahan maamulyaal ma ahan waxbarashada mar kasta waxaa hoos u dhigay waxay tahay dhaqaale xumo lagu soo waday marka mar kasta baraha waxaa leeyahay waxbarashada way liidataa ma liidato dadka wax baranayo ayaa waxba haysanin waalidka marka la waco maamulaha markuu waco waalidiinta aabbihii wuxuu fadhiyaa jardiin ama wuxuu fadhiyaa jar ayuu fadhiyaa marka telefoonku arko maamulka dugsiga markuu arko kama qabanayo uu ka cabsanaa ilaa wuxuu ogyahay in lacag la weydiinayo hooyadii cunugta dhashay waxay joogtaa suuqii waxay ku iibisaa ama yaanyo gadaa ama qoryo iibisaa ama wax kale ka shaqaysaa ayadana macnaa qultulyaankii la dagaalamaysaa laakiin mise ma awoodo inay lacag bixiso problemka marka meesha taagan waxay tahay ilmaha halkaas wax ka barta runtii waalidiintoodii waad arkaysaan darbiyada jardiimada jararka ayay wada fadhiyaan qof maanta awooda inay wax bixiya ma ahan cabsidii marka saas ay u noqotay duruufta marka waxay noqotay juhdi iyo dadaal fara badan inay macallimiinta iyo maamulkooda ay wada bixiyaan laakiin taas waxaan lagu abaalguday magaaladan inaysan waxba jirin liidato waxbarashadoodii markasta taas anagana wayn dhibtaa meeshii anagana laga rabay in la dhiirigeliyo culayska hadda mar walba wax pressure baana saartaan taas marka afwan waxaan leeyahay hadda kadib inaad mahmaahdaas naga bedeshaan midda xigta waxaan rabaa iqra waxay ka dhawaajisay magaaladan in laga rabo 2500 arday oo waxba haysanin ardada anaga aan wax barno xaqiiqatan waa arday waxba aan haysanin intooda badan marka kuwaas uniformka wata arday kale maayaan soo aruurinaa mise kuweena hor waxbarasho la'aanta oo lacagta bixin karin ayagana maxaan ka yeelnaa su-aashaasaan raba insha allah iqra hadhow inay ka jawaabto maamulayaashana insha allah taas dhan dhammaan waa isla ognahay arday ayaa noo dhigata iskuulaadka aan waxba aan ka qaadin buwaagtoodii xataa qaarkood ma soo qaataan qalmaantooda anaga maamul ahaana u bixinaa ardadaasi hadda waxaa la yidhi arday kale ha la soo aruuriyo oo ka baxsan kuwa iskuulka marka kuwa iskuulaadkeena dhigta oo waxba aan haysanin miyaan ku darsan karnaa kuwa hadda loo baahan yahay aad iyo aad aa u mahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal wanaagsan in laga jawaabana mudan ardayda hadda iskuulka joogto ee aan wax laga qaadin waxaan ka qaadi doonaa imtixaan markaasna meesha ay u qalmaan ay fadhiisanayaan okay aad baad ugu mahadsan tahay waana soo dhaweynaynaa warkan waan soo koobaya insha Allah waxaan qalday shaydaanka ka waxaan asiibayna min Allah aad iyo aad waa mahadsan tahay annagana mar saddexaad iyo mar afraad soo dhawoon ku leenahay insha Allah saasaan sameyn doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo ardayda annaga aan wax u qabanayno waa ardayda wax aan awoodin ardayga hadduu wax awoodinna in la sii wado uu u baahan yahayna waa la sii wadi doonaa insha Allah annaga hadda qaybta aan wadno waa qaybta ilaa iyo grade 8 ka ah wax walba waan ka soo gudubnay hadda
waxaan soo tababarnay macallimiin waxaan la hadlaynaa maanta maamulkii degmada maamulka iskuullada gaar ahaan waxaan la hadlaynaa maamulada iskuulka aan la hadlaynaa haddii aan dhammaanteena dad isgarab taagan oo iscaawiya maamulka degmadana garabkooda taagan haddii aanan ahaan lahayn intaan ma soo gaari lahayn maalin dhan waxaa liigu haystay wax cabasho ah ma soo gudbisidee maxaa kaa qaldanaaday degmooyinka kalena caqabadaa laga keenay aan haddii caqabadii haysan caqabad maa idiin soo gudbiyaani maba ii haysatabo ilaahayna nooma keeno marka aad iyo aad aa u mahadsantihiin dhammaantiinna wax walbana waan kasoo gudubnay ilaahay garabkeena uu soo galay inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inaan sida wacan ee ugu wanaagsan in aan ku dhammaystirno taas waxaasoo dhanna waxaan ugu gudbi karnaa inaan ardaydii keenno ardaydii in la keeno ardayda waxaa loo sameeyey waxaa gadaal noogu imaadeen nabadoono cusuba gadaal noogu imaadeen ayagana waan salaamayaa dhammaantiinna ardaydii waxaa loo keenay buugaag qalimaan agabkii wax ay ku baran lahaayeen oo dhammaystiran xitaa waxay leedahay iskuul walbo waxaan rajaynaynaa in loo sameeyo xilliga ardayga breakfastiga oo xilliga break loo soo deeyo meelay ku ciyaaraan ardayda si aysan bannaanka u bixin xataa waa lasoo dhameeyey insha allah qalabkaasna wuu noo soo socdaa laakiin iskuulkii loo keeni lahaa iskuul walba gooniyaa loogu keeni doonaa iskuulkii loo keeni lahaa arday ma haystaa wax walbo waa la soo dhammaystiray insha allah ilaahay garabkeena wuu soo galay kasta dhimanna ilaaha noo dhammaystiri doono laakiin iskuulkii arday ma haystaa su-aasha taaganaas taas ah insha allah waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo 10ka bisha inaan imtixaan testi ah in aan marin doono ardayda imtixaankaasna uu ku fadhiisan doono galaaskii markaas uu u qalmo ardayga annaga ma rabno ardayda iskuulka horey u dhiganaysay ee awoodo waxbarashada inay iskuulkaas ka soo ordaan kuwaan kale ay usoo guuraan lama rabo ardayga aan awoodin aan u baahannahay taasna mar walbo iskuul walba ardayga laga diiwaangeliyo maamulayaasha ay ku xiran tahay ardaygan waxaad dareemi kartaa imtixaanka waxaa qaadi doono aniga ma qaadaya imtixaanka trainaan ku bixin doonaa imtixaanka waxaa qaadi doono macallimiinta idinka idin jooga aa qaadi doono ayagaana kala saari karo in ardaygan iskuul kale uu ka soo orday iyo inuu waxba u bilowneen aniga ma sheegi karo aniga ma fadhiisanayo meesha imtixaanka lagu qaadayo laakiin trainingkay waddadii imtixaanka lagu qaadin lahaa ayaan bixin doonaa dadaal badan iyo juhdi badan iyo wax walba waan isla soo marnay dhammaanteenna inta garabkayga aad soo istaagteenna waa idinkaga mahad celinayaa insha allah markanna waxaan soo xiri doonaa barnaamijkii noo soo socday maanta dhan waxaan kusoo dhaweyn doonaa gudoomiyaha degmada Baraawe gudoomiye Cumar Cabdi Shafaana soo dhawow ayaan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim awal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام نعمل كفاية سكالة دول وهذا نلجو قدوم كحييكا تريا سلبيكا قدوم كحبر الشلا أوركو يويكا أحد معلميتا ولياشا دقن كيو مرتشرفتا لمان أولا نقطي وحا إلهي هادية نوصور تقليي إن أمانا هيركي شالي ماشا أنجو لما أنت كسو قدوم نمال في عن ما أنت تاقن هاي تاسنا معنا وحا كيتي تدال juhdi oo runtii loo galay sidii magaaladan u yeelan lahayd waxbarasho dhameystiran runtii walaashay iqra iyo tiimkeeda dadaal badan ay u galeen sidii magaaladan u yeelan lahayd iskuul free ah oo waxbarasho oo lacag la'aan ah oo taasna lagu talgalay dadka masaakiinta aan waxba haysan sida barakacayaasha iyo xaafadaha qiimihiisa kala duwan laakiin macalinka sida teacher Abdulfataax uu sheegay su'aal uu weydiiyay runtii su'aashaasna aad u fiicnaaday waxay ka mid ahayd mar walba iskuulaadka magaalada waalida taal lahaa runtii dhaqaale xumo ayaa keentay sax waa arrin fiican runtii arrin maana fikir fiican dhaqaale xumo keentay hadduu maanta dhaqaale jiri lahaa lagama yaabi lahayn marka maana macalinka ardayga wax barayo inuu ka ordo waayo mar walba wuxuu ku xisaabtamay lacag waanu ku xisaabtami karnaa anaga waa ognahay waxaan ugu xisaabtami karnaa
macalinka markuu ardayga wax baray guriga uu kasoo tagaa wuxuu ku xisaabtamaa inuu maanta mushaar uu qaadanayo biila laga sugaa taas marka insha allahu tacaala taasna waa idinkaga mahadcelinaa iskuulaadka magaalada runtii beryahan aad iyo aad horta mana oo kobcin fiican ay mana yeelanayaan u jeednaa kolley annaga maamul ahaan waxaan ku dadaalaynaa bar ama baro si iskuulaadka loo keenay macallimiinta oo runtii oo mushaar hadda mana u bilaabatay oo isdhihi karo wejigii ugu fiican maanta oo macallimiinta niyad dhis ay ku yeelan karaan kolley annagana dadaalaan wadnaa dalabaad badana hadda noo maqan oo sida iskuulaadka magaalada oo loo tageyn lahaa cagab loogu keeni lahaa dalabaadkaasna mar dhow insha allahu tacaala way soo gaari doonaan iskuulaad waxbarashana qeybo hadda way ka socdaan dhismo ah runtii dhismaheedana maana gabagabi meel fiican hadda may marayaan taasna waxay keentay dadaal runtii maamulkii amniga runtii isku xirnaashadooda iyo bulshada isku xirnaashadooda hadduusan maanta maana bulshada iyo maamulka iyo amniga aan isku xirnaa lahayn ma uusan dhici lahayn arrimaha maana iskuul waxbarasho heerkan hadda maanta idinka ay joogtiin ma dhici lahayn taasna ilaahay ugu mahadcelinaynaa annagana mar walbo dadaal ayaan muujinaynaa idinkana waxaa idinka codsanayaa maadaama maamuliyaashii iskuulaadka aad tihiin ku dadaala gaarsiiya sidii dhalinyarada oo fursaddan oo ugu qayb qaadan lahaayeen waayo waxaan arkaynaa magaaladan maalmaha waxaa kusoo ziyaaday fal oo mana oo diinta islaamka ka baxsan taasna kolley laamaha amniga iyo maamulka kolley dadaalo badan ay wadaan waqti dhowna ay soo bandhigi doonaan taasna diinta islaamka ka baxday runtii waxyaabo oo magaaladan weligeeda lagu arki jirin ayaa magaaladan maan kusoo ziyaaday oo runtii oo oo qof muslim ah oo diinteena farin ayaa maanta macnaha waxay taagan tahay in magaalada fisqi oo la soo geliyo fisqigaasna waa ognahay dad dibadaha joogaan oo runtii annaga aan ka warhayno oo lacago ku bixiyaan runtii oo lacago kusoo qaataan lacago lagu bixiyaa jirto oo fisqigaas magaalada ay gaarsiiyaan laakiin cidda hadda gacantaan ku hayno iyo baaritaankeeda iyo waxyaabi way socotaa cidda oo mana oo falkaas ama gacan uu ka geystana haddii aan qabano talaabo sharci waafaqsan aan siin doono hadduu ilaahay idmo laakiin waxaa ku dadaashaan magaalada fisqiga kusoo ziyaaday maadaama heer waxbarasho dad mutacalimiin aad tihiin guryihiina gaarsiiya sidii fisqigaas naftirkeeda loogu ilaali lahaa shacabkana oo maana dadka dhalinyaradana oo loogu adeejin lahaa ama loo dir lahaa qaybtii waxbarashada aad ay u fiican tahay hadduusan qofka waxbarasho aan runtii aan lahayn cilmi ma lahan aqoon ma lahan runtii ninkaas waxba ma fahansiin karto laakiin qofku markuu wax fahansan yahay intaad ka dhaadhicideed cunugaagu waa aad tiraad aabbo kaale aad tiraad manasaan isaan wejigan kuuma ficno waxbarashadaada kuuroon maxaad soo baratay buuggaaga itus hayee mana isbuucan imtixaan goormeed gashay maxaad kusoo guulaysatay adna waxaad kuu noqonay sumcad ardaygiina sumcada u noqonay sababtoo ardaygu wuxuu ka bilowdaa tarbiyada wuxuu ka bilaabmaa guriguu kasoo bilaabaa hadduu guriga tarbiya fiican uu ka haysto macallinkii wuxuu u leeyahay ixtiraam iyo kala dambeyn asagana waxbarashadiisa aad ay ugu fiicnaanay marka waa mahadsantihiin runtii aad iyo aad mana ugu mahadsantihiin dadaalo fiican aad muujideen marka waxaan mar walba idinkula dardaarmaa keliya holo fiican aad wadaan dadaalkiina wada artan asagana ambareys runtii iyadoo dhibaato badan ka taagan oo sidii ambareeso uu u yeelan lahayd iskuul waa kala shaqaynay arrintaas annaga runtii weli waxaa isku daynay tan degmo ahaan iyo tan gobol ahaanba inaan ka caawino macallimiinta lacagta dhaqaalaha aan ka caawino isku daynay runtii maalmo bilooyin ayaan soo wadnay bilahaas wixii ka dambeeyay haddana hoogaa mana dhaqaale xumiyaa iska imaaday sidii dhaqaalaha ugu guursay laakiin tan gobolka waxaan filaa inay socoto hadduusan socon asaa ii sheegayo kolley anaa dalabaad kala sameynaa hadduu ilaahay insha allahu tacaala cagabna kolley walaalaha ama dadka hadda mana nabad ilaalinta amisom ayay ka heleen haddana dadaalo kala wadnaa sidii ambareeso ilaa iyo tuulooyinka iyo meelaha IDBska loogu faafi lahaa oo ama loo keeni lahaa cagabadii soo gaarsiin lahaa maadaama iqro ayagana mana heerkooda ay wadaan macallimiinta wax siiyaan nidaamka ay siiyaan annagana waxaan ka caawinaynaa kolley ooda dhinaca ka qaadi dhinaca ujeed hal meel ay u socotaa annagana waxaan ka caawinaynaa cagabkii annaga aan dalabnay ayagana gacanta ka saarayna sidii loo gaarsiin lahaa iskuulaada kale aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh